CIMR oo ka mid ah baananka dalka Faransiiska isla markaana farac ku leh dalka Djibouti ayaa ka hadlay dacwad uu sheegay inay ka dhaxayso ganacsadaha reer Somaliland ee Axmed Cismaan Geelle. War qoraal oo baanku maanta soo saaray oo nuqul ka mid soo gaaray telefishinka Honkey weydiiyeen su'aal la xidhiidha ganacsade Axmed Cismaan Geelle oo maalmihii u dambeeyay wararkiisu ka soconayeen Somaliland kuwaasi oo la xidhiidhay in la dhiibayo waxa uu si kooban u yiri sida tan ma hayno waarankaas ma hayno hada wasiirka dakhliga aniga anigu igu horeyman lahaa arrinkaasi waa la been abuurayaa iyo heshiiska amaahda sidaas darteed garsoorka Djibouti ayaa go'aan ka soo saaray codsiga baanka isla markaasina u saamaxaya in la xakameeyo dhammaan hantidii sida guryaha ee shirkadda JSK ay ku lahayd Djibouti oo haysto qiimaha uu ka qaatay baanka. sidaas awgeed ayaa dacwadda looga dhaqaajiyay maxkamadda Hargeysa iyadoo la tixgelinayo xuquuqda uu leeyahay macmiilku. dacwadda ka dhaxaysa baanka iyo shirkaddu waa mid ku salaysan heer ganacsi oo ay wadaagaan laba hay'adood oo gaar loo leeyahay isla markaasina ku dhisan difaaca danaha baanka. qoraalka baanka ayaa waxa kale oo lagu yiri dacwadda BCIMR waa mid ka caagan fikrado siyaasadeed waxaana salkeedu yahay difaaca